nabad daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalka maanta oo aynu uga hadli doono su'aalo hal xidhaalayaal ah runtii hal xidhaaluhu waxa uu kamid yahay waxyaabaha ka qayb qaata koriinka maskaxda waxaana su'aalahan iyo hal xidhaalayaashan ka jawaabi kara dadka hab fikirkoodu sareeyo fadlan nagu soo biir like saar oo share galay muuqaalka followna dheh page-ka mahadsanid su'aal walba waxaan ku siin doonaa 15 ilbiriqsi oo aad kaga fikirto su'aasha koobaad waxa ay ku oranaysaa sidee ayuu ku badbaadayaa ninkani nin ayaa waxa uu ku xiran yahay qolkaas oo leh 3 albaab kan koowaad waxa ka baxaya olol daran kan labaadna waxa ku jira nin waalan oo qori ku ridaya qofkii uu arkaba kan saddexaad waxa jiifa libaax gaajo u baqtiyay haddaba albaabkee ayaa uu ka bixi karaa isaga oo bad qaba waxaan ku siinayaa 15 ilbiriqsi jawaabtu waxa ay tahay albaabka saddexaad ayaa ah kan ammaanka ah ee uu ka bixi karo sababtoo ah libaaxu mar hore ayaabu gaajo u baqtiyay hal xidhaalaha labaad nin dharcada ah ayaa waxa uu soo wargeliyay saldhigga booliska waxaan uu sheegay in ninkii dilaaga ahaa joogo guri ku dhow saldhigga isla markiiba si degdeg ah ayaa askartii u tagtay gurigii loo sheegay oo uu joogay ninkii dilaaga ahaa guriga waxa turub ku ciyaaraya 4 qof afarta qof waxa ay kala ahaayeen naag dhakhtarad ah naag macallimad ah iyo naag kalkaalisa ah iyo nin damdamis ah isla markiiba askartu waxa ay qabteen ninkii damdamiska ahaa sidee ayay ku garteen askartu in dilaagu yahay ninka damdamiska ah haddaba waxaad haysataa 15 ilbiriqsi haddaba jawaabtu waxa ay tahay askartu waxa ay doonayeen nin dilaa ah ninka damdamiska ah ayaana ah ninka kaliya ee joogay goobta hal xidhaalaha saddexaad ninkii roobka dhex marayay nin ayaa waxa uu soo baxay dabadda si uu isaga dhex lugeeyo roobka ninkaasi muu soo qaadan wax dalaayada ah ama wax uu roobka isaga xigsiiyo waxaana qoyay dhammaan dharkiisii oo dhan balse may qoyin hal tin oo ka mid ah timihiisa waa maxay haddaba sababtu waxaad haysataa 15 ilbiriqsi jawaabtu waxa ay tahay ninkaasi wuu xirnaa ama wuu dhukurnaa oo maba lahayn wax tin ah mahadsanid daawade intaasi ayaa uu ku eegyahay hal xidhaalaheena maanta fadlan like saar share gale oo asxaabtaada la wadaag muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan fariin noogu reeb qaybta commentiga ee hoose mahadsanid